الله الرحمن الرحيم أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أرديال كسو دبادا كانالكا كينج أمين أوفيشيال وأن ugu talagalnay ardayda Soomaaliyeed inay kaga faa'iidaystaan qaybta casharada casharkan wuxuu haddana cashar taxane ah waa maadada chemistry-ga ah waxaan ugu talagalnay fasalka form 1 ee sanadkan fadlan usoo ha gudbaya iloobin dugsiga sare subscribe-ta inuu u noqdo indhafur sheerta ogaadaanna like-ta meesha wax kaga asxaabta horeeya kale si ay u ciwaanada aan soo qaadan faa'iidaystaan doono waxaan ugu horeeyo mahadsanidin ciwaanka aan meesha noogu muuqdo oo ah elements and compounds elementsku muxuu yahay compoundskuna maxay yihiin elementsku waa curiye compoundskuna waa isku dhis si marka aad noola socotid oo elements iyo compoundska aad ugu faa'iidaysatid waxa ay yihiin maatarka qaybaha kala duwan marka nala soco mahadsan ardayahow marka aad imaadi fasalka form 1 ee kugu horeyso daraasada maadada chemistry-ga ah su-aasha lagu weydiinayaa waxa ay tahay what is chemistry waa maxay chemistry marka qeexitaankiisa hadda ayaan kuu sii fududeynayaa marka la soco chemistry waxa lagu qeexayo chemistry-ga markii la qeexayo ardayda badanaa taariifyo kala duwan ay isticmaalaan sida caadiga oo la heli karo tusaale ahaan waxay isticmaalaan marka la what's chemistry waxay leeyihiin chemistry is the study of matter chemistry waxaa lagu bartaa walaxda ayaa lagu bartaa waana sax laakiin waa short way gaaban tahay tusaale ahaan midka hadda meesha noogu muuqdo waxaa layidhi chemistry sidiisa borta wuxuu ka tirsan yahay branch ama farac u yahay science ayuu farac u yahay concerned with wuxuuna quseeyaa with the substance maadada ayuu quseeyaa of which taasoo matter walaxda is composed ay ka samaysan tahay waxaa loo socdaa waxa ay tahay waa barashada maatarka maxaa laga baranayaa kow their properties maadadaas astaamaha ay leedahay kow iyo reactionska falgalada ay sameynayso sidoo kale waxaa ogaanaysaa the use of sida loo isticmaalaya such reactions falgalada to form si loo sameynayo new substances marka chemistry ayaa lagu qeexi karaa la soco marka qaybta xigta iyo ku dhaafin meeshaan u socono oo loo wada socdaa waxay tahay matter what is a matter waa maxay matter ama walaxi maxay tahay qofku marka inuu garan karaa matterka waxay tahay jawaabtu marka waxay noqonaysaa matter has many definitions horta tacriifyo badan oo lagu qeexi karaa matterka leedahay but laakiinse the most common midka ugu caansan is that waa midka it's my substance waa walax which taasoo has leh mass mug ayay leedahay macnaa culays ayaa leedahay aan sidoo kale occupies waxay buuxinaysaa space meel wax walboo culays leh meel firaaqa ahna geli kara ayaan waxaan leenahay matter walax ayaan leenahay fahmaysaa walax waxaan leenahay wax walba oo mass leh macnaa culays leh oo la qaadi karo anda sidoo kale occupies buuxinaysa space meel bannaan ayaa waxaan ku qeexaya inay tahay matter fahmaysaa definitionkaasa ugu macquulsan uguna muhiimsan ay leedahay matterka sidoo kale all physical objects sheeyada noo muuqda dhammaantood wixii anaga noo muuqda waxay ka samaysan yihiin wax loo yaqaano matterta isku mid matter ka samaysan yihiin walax ay ka samaysan yihiin maadaama sheeyadaas ay culays leeyihiin meel firaaqana noo buuxi karaan sidoo kale matterka wuxuu kasii samaysan yahay oo gudihiisa ku jira shay ilma aragta ah oo loo yaqaano atoms waa waxa ugu yar uu ka samaysan yahay curiyaha sidoo kale atomka naftirkiisa waan bara doonaa oo gooni u bara doonaa waxaa gudihiisa ku jira waxa loo yaqaano subatomic particles oo ayakana hal abduraasadee doono muhiimadoodana aan sheegi doono loo kala yaqaano proton neutron iyo electron haddii aad soo baratay chemistry tacriiftiisa oo aad soo baratay maatarka tacriifteeda hadda waxaa ku xiga qaybta ah maatarka in lagu sameeyo classification ama aan kala qaybina maatarka waxaa kala qeyban doonaa laba qayb loo yaqaano pure substance iyo qayb loo yaqaano mixture substance pure waa iska taqaanaa waa wax saafi ama hal shay ka kooban mixturena waxay tahay wax isku qasan oo laba shay iyo wixii ka badan ka kooban mid ayaan u daraasadee doonaa waxaana ku bilaabi doonaa pure substance waa hagaag pure substance maadada ama walaxdii saafiga ahayd ama waa shay ka kooban hal nooc oo keli ah tacriifteeda maxay tahay pure substance marka laga hadlayo sida magaceeda kaga muuqata waa pure macnaha waa saafi
waxaan lagu qeexi karaa defined as waxaa lagu qeexi karaa waa substance waa maado taasoo are made of only ka kooban hal nooc ama one type of atom hal nooc atom ah ay ka kooban tahay. Markaa fiiris hal nooc atom ka kooban tahay, chemical compositionkeeda waa same, sidoo kale maxaa ii sheeg propertieskeedana waa same oo waa la yaqaanaa. Marka substance kaas lagu qeexi karaa. Sidoo kale pure substance waxaa loo kala saari karaa laba nooc oo ah elements and compounds, curiye iyo isku dhis. Okay, waxaan ku bilaabi doonaa element maxaa ku qeexaynaa? Element waxaa dhihi karnaa waa pure chemical substance taasoo ka kooban hal nooc. Pure markuu leeyahay waxay ka dhigan tahay hal nooc ka kooban tahay. Halkaas nooc muxuu yahay? Waa only one type of atom, hal nooc oo atom ay ka kooban tahay. Atom waa bardoota muxuu yahay? Waa ilma aragto taasoo elementii ugu yar. Tusaale ahaan curiyaha hortiina ka muuqda ee silver. Curiyaasha waxay kor dhaafayaan ilaa 100 curiye. Sidaas darteed marka waxaa la iskugu soo ururiyay hal jadwal si aan loo u kala lumin ama meelo kala duwan loogu raadsan. Waxaan loo yaqaanaa periodic table. Qaabkan waxaa loogu habeeyay qaab loo yaqaano atomic number. Mid ayaad u baran doontaa jadwalka sida uu u shaqeynayo. Jadwalka markaa fiirisid waxaa ka heli kartaa 3 nooc oo elementiyaal ah. 3 nooc elementiyaal ah oo metals la yiraahdo, kuwa biraha ah, iyo kuwa ah non metals, kuwa biraha aan ahayn. Metalska exampleskoda u jeedna waa iron, gold, copper, aluminum. Non metalskana waa kuwa biraha aan sida oxygenka oo kale, nitrogenka oo kale, chlorine oo kale. Intaas waxaa loo yaqaanaa non metals iyo metals. Waxaa jiro qayb saddexaad oo jadwalka ku jirta oo curiyaasha ka mid ah, kuwaas oo aan astaan metalskana qayb ka wata, astaantii non metalskana qayb wata, oo labada astaan isku wata, macnaha hal dhinac maracsana. Metalna ma ahan, non metalna ma ahan, oo loo yaqaano metalloids. Tusaale waxaa ka mid ah uranium, boron, silicon, arsenic waa metalloids. Haatan waxaan u gudbaynaa qodobka xiga oo ah compounds ama compound. Sawir u soo sheegnay pure substance-ga waxaa usoo kala qaadnaa laba nooc, qayb loo yaqaano element iyo qayb la yiraahdo compound. Element waa ka soo hadalnay. Compound muxuu yahay marka? Compound waa isku dhis. Kii hore hal curiyo ah Soomaal hal atom ah. Kan wuxuu ka samaysan yahay laba atom iyo wixii ka badan ayuu ka samaysan. Waa isku dhis. Tusaale ahaan glucose. Glucose markaa fiiriso wuxuu ka samaysan yahay laba atom oo kala ah oxygen iyo carbon. Xag kale markaa fiiriso sidoo kale bankisooda ayaa ka mid ah. Elementska sidoo kale waxay sameeyaan reactive elements, react chemical si chemical isku falgalay and form chemical bonds. Waxayna sameynayaan dabar chemical ayay sameynayaan between laba atom falgalas iyo wixii ka badan dabar ay isku qabsanayaan. Dabarkaas waxaa loo yaqaanaa bond ee leedahay. Marka chemical compoundska laba ay noqonayaan, ionic compound iyo covalent compound. Okay, aan ku bilaabno waxa loo yaqaano ionic compounds. Maxay yihiin ionic compoundska? Waa dabar. Dabarkaas wuxuu ku sameysmaa isoo jiidashada ka dhaxaysa laba elementi oo opposite charge oo mid positive yahay mid negative, ana midna plus yahay midna negative yahay ayaa isu soo jiidanaya. Way isku imaanayaan oo way isku soo dhagayaan. Fahmaysa? Markay isku dhagaan labadooda, dabarka ay sameeyaan ama ishaystaan ayaan waxaan leenahay waa dabar sameysmay oo positive iyo negative oo loo yaqaano ionic compound. Tusaale ahaan sodium chloride waa naqaana waa salt, waa cusbo. Waxay ka kooban tahay laba elementi oo sodium ion iyo chlorine ion. Positive sidoo ku imaaday, negative sidoo ku imaaday waa arki doonaa insha Allah. Sababtu waxa ay tahay marka aad fiirisid sodium waxa ay leedahay ama last valence shellkeeda wareega u dambeeya waxaa ku jiro hal electron ay ku jirto. Fahmaysa? Ayadana waa 12 ka waxaa lagu sameeyay electron configuration 8, macna godkood waxaa gashay 2, kan ku xiga waxaa gashay 8, kan u dambeeyana waxaa galay 1. Marka waxay ku qasban tahay sodium inay halkaas electron lumiso si octet rule-keeda u noqdo mid balanced ah. Chlorine markaa fiirisid valence shellkeeda ama wareegeeda godkeeda u dambeeya waxaa ku jirto 7 electron ku jirto. Marka inta 7daas electron ay bixi lahayd waxaa ugu fudud inay soo qaadato hal electron oo ay ka soo qaadeen sodium. U jeedaan Soomahan?
si marka u noqoto octet rule-keeda mid balanced ah oo 8 electron looga baahnaa ee u hesho fahmaysa u hesho 8 electron ee u baahneed inay heshaas ku heshay marka kan wax bixiyay oo sodium ah wuxuu noqonayaa positive waxaa leeyahay sodium ion kii kaloriinka ahaa ee qaatay electronkana wuxuu noqonayaa negative oo waxaa leenahay chlorine ion isleena waxaan wax quseeya waa electron configuration ayuu quseeyaa sodium hal electron ay haysatay si marka halkaas electron u bixiso macnaha waxay u baahan tahay 7 electron marka 7 electron soo qaadashadeeda marka waxaa kaga fudud inay hal electron bixiso sidaas la mid ah sodium marka waxay u baahneed hal electron ama waxay rabtaa in 7 iska bixiso marka 7 energy ay ku bixinayso ayaa waxaa kaga fudud midka ay soo qaadanayso marka halkii ay soo qaadatay labada markay isku tagaan marka oo sodium ion oo meel taagan iyo chlorine ion labaduba isku tagaan waxaa ka soo baxaya waxa loo yaqaano sodium chloride laakiin marka sodium positive kaligeed meel taaganta waxaa leeyahay sodium ion chlorine kaligeed meesha taagan marka aragtid oo minusna korka saaran yahay waxaa leedahay chlorine ion labadooda markay isku tagaan oo ay sameeyaan oo ay midoobaan oo isku dhis ay sameeyaan waxaa leedahay sodium chloride sidaas ma u fahanteen waa hagaag marka aan ka baxkaas ugu baxno ionic compoundska waxaa galan waxa loo yaqaano convalent compoundska maxay yihiin ayaga sidees ku sameysmeen convalent bondska waxay cagsi ku yihiin ionic compoundska waxay ahaayeen electron in la bixiyo uu element bixiyo halka element kale electronka uu qaadanayo kaas waxaa sameysmaa ioniga sameysmaa laakiin convalent compoundska muxuu yahay wax electron la bixinayo ma jirto waa sharing macnaha electron ayaa la wadaagayaa oo share lagu wada noqonayaa midna qeyb uu keensanaa midna qeyb ka labadaas electron ama saddexdaas electron ama halka electron ayaa waxaa lagu wada yahay share oo lagu wada shurumsan yahay waa midba gees marka u jiidanaya marka hadday imaado marka electron share ama electron in la wadaago dabarka caynkaas ah ee meeshaas ka sameysmay oo electronska lagu wadaagayo waxaa leenahay convalent compound tusaalahan waxaa usoo qaadan doonaa biyaha ama water molecule ama biyaha markaad fiirisid waxay ka kooban yihiin laba curiye oo ah hydrogen iyo oxygen oo convalent isku ah ama electron wadaagay hydrogenta godkeeda koowaad hal electron ku jiro marka waxaa laga rabaa inay laba noqoto marka si laba u noqoto waa inay hal electron soo raadsataa keeda inay iska bixisana ma la rabo keeda inay iska bixisana ma rabto inay mid kale soo qaadi rabtaa oxygen ay ku saartay oxygen 6 ayaa ku jirto laba electron u baahan tahay inay soo qaadato oo ama share ay la noqoto macnaha labada marka electron waxay ka heli doontaa labada hydrogen ee gacmaha ay ku haysato hydrogenta ayadana halkeeda electron dhiman waxay ka heli doontaa oxygenta ayay ka heli doontaa marka oxygenta ayada haddii hal hydrogen la wadaagto 7 ay noqonaysaa mid kale u baahan tahay waxay kasoo heli doontaa hydrogenta kale ee ku dhegan ayay la wadaagi doontaa marka meesha waxaa ka dhalanaya waxa loo yaqaano sharing electron in la wadaago hydrogenta electronkeeda iskama bixin oxygentana electronkeeda iskama bixin mid walba midkii uu keensad ayuu la wadaagay macnaha hal saxana waxa lagu wada cunay marka dabarka caynkaas electron la wadaago waxaa loo yaqaanaa convalent compound waxaan rajey doonaa inuu cilmigaas wax uun ka anfici doono oo macnaha wax kugu tari doono waxyaalaha muhiimka laga rabo inaad casharkaas aan kusoo qaadano waxaa kamid ah elementiga kamid ah elementiga inuu yahay uu ka sameysan yahay wax ugu yar ee loo yaqaano atom curiye waxaan soo qaadan tusaalahaan silver ayaan soo qaadanay tusaalahaan sidoo kale waxaa kasoo hadalnay waxa loo yaqaano periodic table waxaan sheegnay periodic table-ka inay ku urursan yihiin dhammaan curiyaasha boqolka kor u dhaafaya qaabka u sameysan yihiin waxay tahay qaab loo yaqaano increasing atomic numberkooda sida u kala sareeyo ayaa macnaha loo kala qaadqaaday ee ugu jira jadwalka ugu aruursan yihiin waxyaalaha kasoo hadalnay sidoo kale waxaa kamid ah elementiska inaan soo kala qeybanay oo u kala qeybanay metallis non-metallis iyo waxa loo yaqaano metalloids metalliska waxay ahaayeen kuwa biraha ah non-metalliskana waxay ahaayeen sheeg muxuu ahaay kuwa biraha aan ahayn metalloidskana waxay ahaayeen kuwa labada astaanba isku leh oo iskugu dhexeeya ayaan kusoo qaadanay casharkeena maanta
waxyaalaha sidoo kale looga soo hadlo waxaa ka mid ah matterka inaan u kala qeybinay laba qeyb loo yaqaan isaga muxuu ahaay matterka pure substance iyo mixture waa qeybaha dambe ku qaadan doonaa. Pureka waxaa u kala qeybadan laba qeyb, element iyo compound. Element waa kasoo hadalnay, waan qeybaha ka hadlayna ka mid. Compound sidoo kale waa kasoo hadalnay inaan laba u kala qaadnay oo ah ionic compound iyo covalent compound. mid walba waxa uu yahay waan kasoo hadalnay. Ionic compound waxay tahay marka elementiska mid ka mid ah electron uu bixiyo kan kale uu qaato, dabar ka samaysan waxaa loo yaqaanaa ionic covalent bond ayaa loo yaqaanaa. waxaa cagsi ku ah covalent compound. Covalent compound cagsi waay. Covalent compoundska ionic compoundska waxay ahaayeen marka electron la isdhaafsanayo oo mid positive iyo negative ay isdhaafsanayo ayuu ahaa. Covalent compoundskana waxay tahay sharing waay, electron la wadaagaya. Hal electron la wadaagi karaa ama laba electron ayaa la wadaagi karaa oo midba midka kale ayuu share ku noqonaa. Taqaano share waxa yaqaano. Share waa in wax la wadaago waay, qof wax la siinayo ma jiro. Sharing ayay noqonayaan. Waxaa loo yaqaanaa covalent compound. sida muuqaalka meesha inaga muuqata, ionic compound waxay tahay in electron mid bixiyo midka kale uu qaato. Covalent compound waxay tahay mid labaduba inay electronska wadaagaan oo mid qaadanayo lihi loo siinayo inaysan jirin ayaan kasoo hadalnay. Insha Allah qeybaha dambena way noo sii socon doontaa. I hope casharka inuu ku xiiso geliyo. Fadlan kanalka subscribe saar. Thank you, like, share hanaga ilaawin.